Yeelashada inaynu yeelano hadaf waa mid naga caawin karna inaynu guulaysano, inaynu ka gudubno dhibaatooyinka nolosha, inaynu horumarno, inaynu iska bedelno maanta meeshii aynu taagnayn, inaan noqono dayax ifaya. Waa midna siin karta hadaf. Hadafku waa midna siin kara inaan guulaysano, inaan ka gudubno caqabadaha nolosha ee adag, sababtoo ah waxaynu leenahay hadaf na guba. Waxaa jirta dad aanan garanayn hadafkooda ama meesha ay u socdaan. Adigoo doonaysid inaad dhakhtar noqoto, ma waxaad baranaysaa injineeriyad, waxaadna dhahaysaa waxaan doonayaa inaan dhakhtar noqdo. Macquul ma tahay? Waa maya. Sidaasoo kale dad baa isku daaliya waxaysan ahayn hadafkooda, isaga dhumiya waqtigooda. Yeelashada inaad yeelato hadafsan ku gaarsiin kara wadadaada guusha. Yeelo hadaf, ku qora meel, eeg mar waliba si aad u soo xasuusato ee aadan u ilaawin. Waxaase qof hadihin qofkaas ama dad iga horeeya ma jira arrinkaas sameeyey. Waxaad noqonaysaa qofka koowaad ee sameeya. Waad noqon kartaa, sababtoo ah hadafyada waaweyn dadka wixii dhahaan ma jiro qof sameeyey, laakiin waxaad noqon doontaa ama aad noqon kartaa qof ugu horeeya ee sameeyey. Ku darso qof unbaa ku guuldareystay. Be honest. Today waxaad samaysaa inay tahay tomorrow waxaad arki doontid. Ee aynu ka joogsana arrinka inaad go'aansataa ee aad qorataa u qaba hadafkaaga. Guuldaradaas marka aad qoranaysid hadafkaaga, guuldaro walba wax ayaa ka dambeeya. Ogow inaad qoranaysid wax adag ee inta noloshaada ka mid ah aad ku fikirtid sidii aad ku gaari lahayd. Isku day in aad fahanto. Haddii aad ku gaartidna waa guulaysanaysaa. Meel walba joogtaan saaxiibayaal, guul ayaan idin rajeynayaa. Fadlan channelka videoga haddaad ka heshay like saar, siina share, sidoo kale subscribe. Guul ayaan idin rajeynayaa. Meel walba joogtaan guul ayaan idin rajeynayaa.